soo dhaweyntii runtii quruxda badneed ee soo dhaweeyeen aad baan markale runtii uga mahadnaqaynaa waxaan nimid dalkayagii meel ajnabi iyo magaalo kale ma jiro dhulkayagii baan nimid waana ku faraxsanahay waana ka mahadnaqaynaa runtii waxaan maraynayaa khudbadii furitaanka waxaan oran lahay runtii dhammaanteed waxaa yiri Axmed waxba nooma uusan hambaynin Axmed sida muuqata hadda Axmed isaga macallin ku noqday federalismkii waxa weeye sida uu sheegay barnaamijkan iyo madashan waqti dheer ayaa fakarkeedu iyo in la soo yimaadahay ay soo socotay waxaan u maleynayaa markii u dambeysay oo ay ahayd shirki inaan qabano sunnimaadno ayaa madaxweyne xasan sheekh codsaday in xamar la isugu yimaado waxaan isleedahay marka ana laftu waxay ahayd qurax foran oo la xabay bay ahayd inaanu marka waxaa ka dhashay marka ana laftii dabcan marka haddii ana laftu ay dhalatay baahi markaas degdeg u jirtay oo mar walba in la isu yimaado doorgo ay shiraan ma aysan jirin barnaamijkii waxaa bilowday isbeddelkii dowladnimada shirarku waa ay badnaayeen ay isugu imaanayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu wax badan baana markaas oo hawla ayaa socotay waxaan u maraynayaa marka inaysan isbeddel dowliga u soo yimaadeen haddii barnaamijkaas ana lafta iyo wada tashiga guud ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha kala dowladda federaalka ay isugu imaanayeen haddii aysan jirinin runtii waa nasiib darro in aan u raadino sababayn iyo justifications in la isu yimaado oo dowladuhu ay yani dowlad isu yimaadaan in aanu sababayno oo dadka u sheegno oo maaragtay xikmadayno waxa weeye inaan isu nimaadnaa waa dastuurka ku qoran tahay qodobadiisina waxaa yiri oo sharxay madaxweyne Axmed marka inaanu cudurdaar ka bixino inaanu isu nimaadnaa runtii sax ma meel kastoo adduunka federalism ka jirana dabcan yani dowlad goboleedyada iyo statesku forum ay ku midoobaan isugu yimaadaan bay leeyihiin yani maraykanku gubernatorial bill wax la yiraahdo National Government Association yani House of Federations ma meel badan ka jira marka waxa weeye wax qariib ah maaha in dan gaar ah markii laga eego xuquuqaha waajibaadka awood qaybsiga mas'uuliyad qaybsiga in ay leeyihiin xuquuq gaar ah ay leeyihiin isugu yimaadaan oo ay danahooda ka tashadaan wax qariib ah oo dacina in loo sharxo u baahan maaha ila tahay marka waxaan rabnaa waddankani federalism waxa weeye waa sharci law of the land waxa weeye waddanka sharciga maanta uu ku jiraay waa oo dastuurka waxa weeye waa federalism laakiin waxaan rabnaa in waxa noo qoran oo dastuurka noogu qoran in siday dhabta ahayd in loo practice gareeyo waxa jira oo noo qoran iyo mararka qaarkood waxa ka socda dowladda dhexe runtii wax isla ma in badan waxaanu afka ka sheeganaa inaan federaal nahay laakiin marka la eego sida hadda habdhaqanku yahay ama sida loo dhaqmayo shuruucda la baasgaraynayo la tashi la'aanta aan cidna la tashanayno wax walba aad moodo in la marogsanayo waxay runtii keenaysaa marka in la yiraahdo war wax khaldan ya waxay u baahan yihiin sixitaan sida Axmed sheegayna dimaba ah waxun in la yiraahdo la wada hadlo la yiraahdo annagana hadii wax dhibo oo dhankayaga jiraan in laga wada hadlo oo loo sheego annana waxa marka aan gansanayno ama waxa aan noola muuqdo inaysan sax ahayn iyo nidaamkii dawliga ah lagu heshiiyay hadaysan ahayn in la isu yimaado laga wada hadlaahay mushkilad ma marka in anagu marka hore isu nimaadno wada hadallo warna hadaan dowlad goboleed nahay maxaa anagu xuquuq aan leenahay waxa socda maxaa anaga yani doorka aan ku leenahay muxuu yahay dabadeedna
fikirkii aragtiyada inaan la qaybsano dowladdii dhexe ee Soomaaliya waa wax runta xaslaaya wax wanaagsan weeye danta iyo maslaxadda ayaana ku jirta sida uu sheegay Axmed shirku ma aha shir cidna lagu mucaaradayo dowladda anaga dooranay juhdi badan baan ku bixinay wada la socotaano yani processkii hadda dowladdan ay ku timid wuxuu ahaa mid ka soo bilowday dowlad goboleedyada inaan doorashooyin lagu soo qabto shida badan iyo tacab badan runtii ayaa naga galay in aanu dowladdeeda si nidaam oo wanaagsan aanu u samaysano oo ay loo doorto marka wixii anagu aanu soo dhisnay oo dee ku tiirta cabeelay in la tuhmo inaanu anagu dowladdan kuna runtii sax maaha marka waxaan rabnaa ana halka aan ku dheeraanaynin in saa loo arko ismaatinka yaga iyo wada tashiga iyagu inuu saa yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah in shirku ku dhabaado wax wanaagsan si dhab ah oo jidina loo wada hadlo runtii marabna wax hadaan isu nimid inay ka soo baxaan wax dhab ah ya oo anfaca Soomaali oo wanaag ah oo laakiin haddana xaqiiqada iyo runta farta soo saarayo oo la wada hadlayo inay ka soo baxaan ayaan rabnaa insha Allah guul iyo khayr baan rajaynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته